بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم صوم وناكسن دمان أمد الصوماليات ملكست أي جوجان وحن كوجد جرنا بشي فضل قبضنيت وحنا مركل دمانتنا السوق باقينا إن آن إسعاونا إسكون حريصنا وحود وداقنا إسعفنا sidoo kalena dariska aan ka warhayno dib iyo dheefba maanta waa 15 May waa maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed waa maalin macno weyn oo leh dhamaanteena si gaar ah xisbiga awoodda shacabka oo taladiisa iyo tiirarkiisuba dhalinyarada yihiin waxay noo tahay maalin weyn waxaan leenahay hambalyo sanad guuradii 17aad ee maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan alla uga baryaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo hal dooradii SYL annagana naga yeelo kuwa ka qaata waajibaadka ka saaran u adeegista raadinta sharafka iyo karaamada qarankeena munaasabada ee maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta waxay ku soo aaday iyadoo in ka badan 30,000 oo arday dhalinyaro Soomaaliyeed ay u fadhiyaan imtixaankii shahaadiga ah ee dugsiga sare waan la soconnaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay arrimaha imtixaanaadka waxa dhacay waa nasiib darro waxaan u rajaynaynaa wasaaradda ardayda waalidiinta inay ugu dambeyn isku aragti ka noqon doonaan sidoo kale waxaan wasaaradda leeyahay waa waajib ina saaran in ardayda in waalidiinta iyo ardayda Soomaaliyeed xaaladaha adag aan dhageysano cabashadooda waliba aan u dabacsanaano la'aantood waxba ma noqon karno dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyo duruuf kasta ay ku sugan yihiin waxaana hor yaalo hawlo iyo waajibaad aad u culus waxaana saaran mas'uuliyad guud oo sida kaliya aan uga bixi karna ay tahay wadajir wada shaqayn iyo baraarug badqaba dal walba khayraadka uu leeyahay waxaa lagu gartaa tirada tayada iyo wax soo saarka da'yartiisa tayeenta iyo ka faa'iideysiga maskaxda iyo awoodda dhalinyarada waa sida kaliya ee lagu hormari karo isku filnaashana lagu gaari karo awoodda qura oo ay Soomaaliya haysato waa dhalinyarada Soomaaliyeed caqabadaha maanta ku gadaaman waxa ka weyn culayska iyo mashaqada haysto waalidiinteena iyo jiilka idinku xiga fadlan aynu u istaagno diyaarinta mustaqbal iyo taariikh bog cusub u furta Soomaaliya mar kale hambalyo maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed وعلى رشاية سليبا ليس قال